بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن أحمد محمد سيلانيو waxaa maanta xafiiskiisa ku soo booqday wakiilka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliland Ali Noyan Joshkun oo ah ninkan iyaga jooga waxa kaloo kulanka madaxweynaha ku wehelinayay ku xigeenkiisa xagga xukuumadda wasiirka macdanta iyo tamarta Hussein Abdi Ducaale iyo professor Muxil oo ah wasiir dawlaha arrimaha dibadda guud ahaanba madaxweynuhu wuxuu kala hadlay wakiilka Turkiga Soomaaliland u fadhiya arrimaha abaaraha si dawladda Turkigu ay muhiimad gaar ah u siin lahayd maadaama abaartu ay tahay meeshan Soomaaliland meeshii ugu soo horeysay waxa kaloo lagala hadlay guud ahaanba xagga dhaqaalaha iskaashiga iyo maalgashiga sidii Soomaaliland iyo Turkiga ay wada shaqayn lahaayeen marka waxaan iyo waxbarashada oo iyadna kaalin muuqata dawladda Turkiga ay ka qaadan karto waxa kaloo lagala hadlay sidii dokumentiga qaranka Soomaaliland uu leeyahay dawladda Turkigu ay ugu bixin lahayd fiisaha taana waa lagala hadlay marka ninkan uu ku cusub yahay waxaan jecelahay inaan isaga laftiisa ku soo dhaweeyo please welcome Mr. Consular Ali Noyan. I have been recently appointed as the Consul General of the Republic of Turkey to Hargeisa, Somaliland. I'm very happy to be here. I received a very warm welcome over here. I will do my best to better our relations in the future. Thank you very much.